gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani isla markaana xilligan musharax u taagan hanashada hogaaminta talada dalka oo qaybo ka mid warfidiyanka gudaha Hargeysa kula hadlay ayaa baaq nabadeed u diray beela deer wadaaga oo xilligan ku diriraya deegaana ka tirsan gobolka Bohoodle isagoo ugu baaqay inay nabadda qaataan isla markaana ay joojiyaan colaadda. waxaan salaam u dirayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland ujeedada ugu weyn aan u qabatay shirkan jaraa'id waxa weeye inaan diro baaq nabadeed. waxaan baaq nabadeed u dirayaa shacbiga Somaliland ee ku nool degmada Bohoodle ee walaalaha ah. waxaan ugu baaqayaa in dhacdadii halka ka dhacday dadku ku dhinteen in ayna ka maarmin qof kaliya oo inaga dhinta, qof kaliya oo inaga dhaawacma. sida la sheegay in ka badan 10 qof ayaa ku dhintay dagaalka shalay dhex maray labada beelood ee walaalaha ah. waxaan soo jeedinayaa in colaadda la joojiyo, in dagaalka la joojiyo, in nabadda la soo celiyo, in xasiloonida la soo celiyo. qof quraynu ka maaranaa ma jiro maanta Somaliland. intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, intii dhaawacantay Ilaahay caafimaad ha siiyo. waxaan ugu baaqayaa dhammaan odayaasha dhaqanka iyo dhammaan oo jooga Somaliland in la nabadeeyo oo beelaha la dhex galo oo nabadda la soo celiyo. waxaan ugu baaqayaa xukuumaddu inay doorkeeda qaadato. mar labaad waxaan ku baaqayaa baaq nabadeed. walaalayaal colaadda joojiya, walaalayaal dagaalka joojiya. intaa kama maarano, qof qurana kama maarano. marka nabadda aan qaadano, walaalnimadan soo celino. dagaalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro warfidiyanadu wax ka weydiiyeen kulamo gaar ah oo magaalada Hargeysa kula qaatay wasiiro iyo sidoo kale safiiro ka socda dawladda Britain ayaa wax uu faahfaahin ka bixiyay ujeedooyinka daarnayn iyo sidoo kale wixii laga wada hadlay. safiiro iyo wasiiro ka socda dawladda Britain iyo wadamo kale oo kamid ah kuwa qaranka Somaliland siya ayaa Somaliland socdaal ku yimi. mas'uuliyiinta iyo musharaxiinta kulamo kala gaar ah la qaadanayeen. bal nooga faahfaahi kulamada ma ka qayb gashay, maxaa ka war hadashay aad kulanteen? bismillaahir rahmaanir rahiim. waxa maanta inoo yimi wafdigii ugu cuslaa ee ka socda dawladda Ingiriiska oo ka koobnaa ilaa 10 qof ama mas'uul oo hogaaminayay wasiir oo ku jiray safiirka Ingiriiska iyo saraakiil kale, agaasimayaal guud oo ka tirsan wasaaradda Ingiriiska ee arrimaha dibadda iyo kuwa deeqda bixiyaba. waxay u yimaadeen Somaliland inay kala hadlaan guud ahaan arrimaha doorashada iyo horumarka iyo iskaashiga ka dhaxeeya Somaliland. waxaanu kala hadalnay arrimaha doorashada khuseeya dhammaantood. waxaanu kala hadalnay in loo gurmado dadkii abaaro ku dhaceen ee shacbiga reer Somaliland, in aad iyo aad loogu soo gurmado oo noloshoodiina dib loogu soo celiyo, lana dhaqaalahoodana kor loo soo qaado. waxaanu kala hadalnay kaalmada iyo horumarka Somaliland guud ahaan iyo iskaashiga ka dhaxeeya dawladda Ingiriiska iyo Somaliland. kulankaasi waxaa ka wada qayb galay xisaabta mucaaradka wadani iyo wicid. kulankaasina wuxuu noogu dhamaaday si afgarad leh oo wanaagsan. Faisal Maxamed Aadan, Faisal TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.